السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا channel كيغا ومنا كورنر waxaa idin rajaynaa insha Allah khayr iyo caafimaad meel walba aad joogtaan fiidiyoga maanta insha Allah wuxuu ku saabsan yahay qaxwada faa'iidooyinkeeda iyo sida saxda loo cabo waxaad ka istifaadi kartid sida isku caataysid dadka waxay yihiin laba qaybood ama reero shaah ama reero qaxwo aniga waxa ahay reero qaxwo marka qaxwada maxay ahayd waxyaabo badan oo faa'iidooyin ay leedahay rabaa inaan idin la wadaago فائدة ugu horeysa waxay tahay qaxwada sida saxda hadii loo cabo waxaad ka istifaadaysaa inay tahay wax oo maskaxda u fiican ama cabitaan maskaxda u fiican oo antioxidant sidoo kale maxay ahayd hilmaamka badan way u fiican tahay dadka badanaa qaxwada waxay u cabaan subaxii ama maxay waqtiga ahaataba inay indhaha si fiican ugu kala qaadaan sharp focus sida u ahaadaan marka qaxwada xagga maskaxda iyo hilmaamka badan dadka way ka caawisaa طبعا نك waxaa ka hadlaynaa qaxwada oo maxayda madow oo sokorta lahayn qaxwada oo maxayda oo hada 3 in 1 ama 3 في 1 mid oo cappuccino-da iyo waxyaabahaas kama hadlayno waxaa ka hadlaynaa qaxwada madow oo maxayda xaraarka sokorta hadaa ku dartid faa'iidadeeda ka yaraanaysa laakiin qaxwada oo maxayda caadiga oo xaraarka ayada maxayda ka faa'iido badan waxyaabahan kale qaxwada oo creamka iyo waxyaabahan kale oo saa'idka lagu daraayo فائدة لبعض وحيتها هاي هدات هاي قف محاها جيمك أداء أما محاها صبحي إكسرسايز سماية ويكون في عنتها إن أكو بلعبة قحوة حاجة رد قحوة بيكون سينيسا إنرجي بيكون سينيسا باور بيكون سينيسا فوكس بقى هانيسا مركا إكسرسايز كي جميع سيا أديك وحاسمانيسا أديك يوم محاها سفي عن أو إن وسو جيدا سفي عن محاها هذا أديك إنرجي هايستا مركا أد بالله محاها لو أمانة دت قحوة ده محاها عبان سيدي محاها هذا أنت جميع سيا سماية أرنت الصدحات وحيتها هاي صبحي هدا كوقف بلعبة قحوة طبعا وحال وقف بالوضاء كودي هرب بيا لباب بكير بيا محيط قف مركو صاق عندها كل قاعدة لو بكير بيا لعبة لكن أمريكا على الوضع بكير بيا عبتد كذب وعبار أجوكتد قحوة عبتد وحاد هدات هدتك أم هذا الشهية ده فرنتها أما مر والبقى جذا قبته وحاد يلي كرتا قحوة وحاد كون ميران يسجح لين دنانا marka jeexaliin dhanaanka ku miirtid qaxwada xaraarka oo madow waad cabaysaa gaajada badan way ka haraysaa diet hadaad isticmaalaysid aad bay ka caawinaysaa miisaanka inuu ka dago marka waa wax aad u muhiim ah qaxwada ma aha kaliya iska cabitaan caadiya يعني waa wax oo maxay hada faa'iidooyin leh geedaha faa'iidooyin leh way qaxwada marka dadka oo raba diet inay sameeyaan waxa idinku dhiirigelinaa inaad tijaabisiin qaxwada dhanaanka lagu miiray gaajada badan way idinka haraysaa sidoo kale dadka oo subaxii markay soo kacaan oo dareemay lalabo ama qaras qaxwada xaraarka hadaa maxay hada cabtid lalabada iyo qaxwada iyo qarasta aad bay kaaga caawinaysaa marka intaad ku afbilaaban lahayd shaahi sokor leh waxa fiican inaad qaxwo xaraara ku afbilaabatid Soomaalidu waxay dhahaan gooryaanka dishaa yani qaxwada xaraarka qofkii subaxii ku afbilowdo laakiin yani waxyaabahaas waxay yani ka caawinaysaa inay lalabada marka ku afbilaabatid wax sokor leh iyo wax xaraar marka ku afbilaabatid isku mid ma aha marka aad idinku dhiirigelinaya inaad tijaabisiin qaxwada subaxii ayadoo xaraar ah sidoo kale qaxwada waxay faa'iido u leedahay yani faa'iidooyinka ay leedahay adraarna way leedahay qof wax walba maxay adduunkan faa'iidana waa leeyahay adraarna way leedahay marka dadka qaar qaxwada markay isticmaalaan waxa ku dhaca wadna garaac سيبا دتك أو ديجيريد قبا أما أنيميا قبا قحوة لو ما باهنا إني عبان دتك ودنا قراع دري معايا سيدا كلا دتك ديكرك قبا هاي بلاد بريشر iyo maxay hada dadka cholesterolka dadkaas oo kale qaxwada iyo maxay waxyaabahaas inay iska ilaaliyaan waay maxaa jirade uma fiicna badana qaxwada badana waxa la dhahaa dadka maxay hada raba inay seexdaan ama maxay dadka hurdo la'aan ay ku rido galabtii kadib inay saacibin qaxwada ilaa galabtii maxay hada hadaa cabtid kadib galabtii cabin maxaa jirde kafeeyinkaas ku jira hurdadu ka qaadaya wuxuu ka dhigayaa active لكن دادا جرى سبحان الله هدي عبان وقتك استعبان إسك سيحان كران مركا داد كاستهاي داد محان هذا قف حالتها هاي ما شاء الله آد ونصيب له qaxwada sida maxay cabitaankeeda faa'iido u leeyahay isticmaal keeda xagga maqaarka jirka faa'iido bay leedahay hadaad isticmaashid qaxwada oo maxay madow oo shiidan hadaa ku dartid qumbo saliid qumbaha
labadaas shay hadda isku dartid scrub ahaan u isticmaashid korka waxaad ka dareemaysaa inay u fiican tahay xagga stretch marka iyo maxaa hada jeexjeexan dadka markay cayilaan miisaanka aad markay cayilaan jeexjeexa jirka maxaa cajarada iyo caloosha dumarka maxaa gala sidoo kale naagaha markay uurka qaadaan markay maxaa ilmaha dhalaan kadib jeexjeexaas markay aragtid stretch markiga ay u fiican tahay cup scrubka laakiin waqti buu u baahanayaa marka aad maxaa baa loo amaanaa sidoo kale qaxwada hadda u isticmaashid scrub ahaan oo wajiga maxaa hada iyo gacmaha u isticmaashid miinta way ka maxaa yareynaysaa jirka maqaarka way qurxinaysaa aad bay u nadiifinaysaa scrubada aad u fiican oo la isticmaalo waa qaxwada iyo maxaa saliidda la isku daro ama saliid qumba ama saliid loos ahaata waxa adiga jeceshahay laakiin qaxwada scrub ahaan aad bay u fiican tahay sidoo kale hooyooyinka badanaa waxayna dhihi jireen hooyooyinkeena maxaad qofku dhaawac gaaro ama gacanta maxaad midi haday ka qasho ama madaxa juuga haday ka gaarto qaxwo maxaad xaraara hal mariyo maxaa jirdhe qaxwada dhiiga maxaad oo soo baxaaya ba istaajinaysa badanaa waa isticmaali jiray runtii yani waxaana ka arkay waxa ka dareemay runtii dad waxay dhahaan sokor hal isticmaal dadna qaxwada laakiin waxa dareemay qaxwada inay ka fiican tahay haduu madaxa juug ilmaha yarka haduu juug ka gaaro maxaad oo dhiig meesh ka soo baxa ama hadii gacanta adoo wax maxaad jarjaraay midida ka dhaawacanto qaxwada xaraarka ku tijaabi waad arki doontaa maasha Allah dhiiga sida u joojinayso hooyooyinkeena samaan maxaad u isticmaali jireen maxaad wax oo maxaad cilmigan wuxuu sheegay qaxwada inay u fiican tahay maqaarka dhiigana ay joojinayso xagga maxaad dhaawaca marka waa wax oo aad maxaad u muhiim ah inaad maxaad u isticmaashid oo maxaad ku tijaabisid asxaabtu waxay idin rajaynaa insha Allah videoga maanta inaad ka hesheen like iyo share iyo subscribe ha iga ilaadina asxaabtiina la wadaaga waad u jeedin ma sha Allah wankee wax yar baa nooga dhiman intuu sanadka dhamaan insha Allah inaan ugu caawisiina rabaa videoga la share garay asxaabtaada qofkii u baahan waxay idin rajaynaa insha Allah khayr caafimaad meel walba joogtaan assalamu alaykum